بسم الله الرحمن الرحيم halkan waa kantaroolkii laascaanood ee xagga galbeedka kaga yaalay waxaan u sheegaynaa gobolada SSC in laga mamnuucay wax allaala wixii rara ee uga imaanaya waqooyi maamulka SNM wixii nooga imaanaya horaan u mamnuucnay bisha 5teeday ku ekayd haddeer baabuurta halkan taalla maanta bishu waa 7 waxaanu qabannay baabuurtaasuna wixii lahaa ee ay u siday ilaa 3 gudidii ay arrinta meel saarta mooyaan la sii dayn maayo wixii maanta ka dambeeyana gaarigii yimaada ama wax ka keena waqooyiyow in adiga iyo gaariga waxa sidaba la gubayo waa inaad ogaataa sidaa weeye waa laasti kama dambeyn weeye 300 oo nin baa halkaa dhiigoodu yaalla ninna dheecaankiisa soo raran maayo nin walba taa ku talag annagoo ah ciidamada xaquudirka SSC oo ku sugan kantaroolka galbeed ee magaalada Laascaanood waxaan u sheegaynaa darawaliinta iyo gaadiidleyda iyo shirkadaha ganacsiga safar dambe oo ka iman doona ee gobolada waqooyi Burcaya Hargeysa oo laamigan isticmaalaya ma jiro ee darawalka hadda soo raran oo waxa meeshaad mari lahayd adaa yaqaan kuwii maanta noo yimid ku yimid sifada sharci darrada ana waa kuwa taagan waana haynaynaa ciidanka xaquudirka SSC baa xukuma wadadan cid kalena waxba laga dhageysan maayo wax safar oo dambe oo maraya iyo wax anaga nooga tagaya iyo wax iyaga nooga iman kara midna ma jiro sidaa lagu talagalo saasaan u sheegaynaa dhammaan dadka goboladan jooga inay waxa ka yaala ganacsiga ama safar ah waqooyi ka jira ay sidaa ku kansalmeen maanta wixii yimidna halkaas ay ku xaniban yihiin 5 bishan Abriil ayay ahayd mawcidkii u dambeeyay lagu ballamay inaan gaadiid dambe isticmaalin oo taraasiya wadadan saasaan u sheegay